adduunka meediya madasha dhaqanka iyo dhacdooyinka kuleel heerkiisa ugu sareeyay gaaray oo Faransiiska ku dhuftay bilihii June iyo Luulyo ee sanadkan ayaa dilay 1435 sida ay shaacisay wasiirka caafimaadka ee dalkaas Agnes Bazin oo la hadashay idaacad Faransiiska ayaa sheegtay in kala bar dadka dhintay ay da'doodu ka weyneed 75 sano balse Bazin ayaa sheegtay in talaabooyin ka hortaga oo la qaaday ay horseedeen in 10 jibaar hoos loo dhigo dhimashada marka la barbar dhigo kuleelkii darnaa ee sanadkii 2013 ku dhuftay Yurub. Faransiiska ayaa bilihii June diiwaan geliyay kuleelkii ugu darnaa ee abad soo mara kaasi oo ahaa 46 centigrade. Magaalada Paris ayaa idana laga diiwaan geliyay kuleelkii ugu darnaa ee abad soo mara bishii Luulyo ayuu kuleelku gaaray 42.6 centigrade. wasaaradda caafimaadka ee Faransiiska ayaa sheegtay in kuleelkii koobaad ee sanadkan ku dhufta dalka uu dhacay 24 June ilaa 9 Luulyo ayna ku dhinteen 567 ruux. kuleelkii labaad ayaana dhacay 21 ilaa 27 Luulyo waxaana ku dhintay 886 ruux. Agnes ayaa sheegtay inay dhinteen 10 ruux oo shaqo ku jiray. xilligaasi dawladda ayaana meelo kala duwan oo Faransiiska ka soo saartay digniinta ugu sareysay kuleelka. waqtigaasi waxaa la xiray iskuulo badan waxaana la baajiyay kulamo ay dad isku imaan lahaayeen si loo dhimo dadka uu kuleelku ku dhacayo. beeraha nasashada iyo goobaha lagu dabaasho ee magaalooyinka qaar ayaana la furay si dadka ay isku qaboojiyaan. xafiisyada dawladda hoosena waxaa lagu diyaariyay qolal qabooba oo si ku meel gaar ah loo isticmaalo. kuleelkaas ayaana dab ka kiciyay dalka ay Faransiiska diriska yihiin ee Spain. gobolka Catalonia ayuuna dabku ka geysay dhibaatadii ugu baaxadda weyneed ee soo wajahda muddo 20 sano ah. dalal badan oo Yurub ku yaala ayaana laga diiwaan geliyay kuleelkii ugu badnaa kuwaas oo ay ka mid yihiin UK, Belgiumka, Germany, Luxembourg iyo Netherlands. ma jiro dal kale oo baahiyay macluumaadka rasmiga ah ee dadka ku dhintay kuleelkii darnaa ee sanadkan.